هذا يونس هو أمد عدود يلا حاله كانوا مقنع الله سبحانه يلا نحن عدود الله وين موجني إنه هذا أودي هاي عالم مقنع كرنا وموجني olole uu gundhigiisu ahaa isku duubni iyo wadajir oo ku dhawaad 30 maalmood ee u dambeysay ay wadeen guddi uu hogaamiye safiir ku xigeenka Soomaaliland ee Yemen oo ku saabsanaa diiwaangelinta dadweynihii aan horey u qaadan kaarka codbixinta iyo kuwii uu ka gubtay ayay maanta ku soo gabagabeeyeen deegaanka magaalada cad ee Koonfur Bari magaalada Boorama xubnahan ayaa awoodda saaray sidii wacyigelin looga sameyn lahaa miyi iyo magaalaba taasi oo sabab u noqotay in dadweynuhu isaga kala yimaadaan meelo kala fog si ay uga faa'iideystaan fursadan dahabiga ah أدوية ترتني أساك زياد ودفتو استوان قلياي شوي وادورشي استوان قلياي safiir ku xigeenka Soomaaliland ee Yemen Idris Aadan Raage Dr. Maxamuud Ismaaciil iyo mas'uuliyiin kale oo kamid ahaa guddidan awoodda saartay inay soo bandhigaan cududooda ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin natiijada wanaagsan ee ka dhalatay dadaalkii ay sameynayeen muddada dheer waxana ay sidoo kale mas'uuliyiintani u mahadnaqeen dadweynahani kaalinta weyn ka qaatay diiwaangelintan iyagoo sidoo kalena faray inay u diyaar garoobaan kaar qaadashada oo dhawaan ka furmi doonta degmada doorashooyinka Soomaaliland maantana waxaan ku sugannahay magaalo cad oo ay ka socoto diiwaangelintu codbixiyayaashu waxay ku jirtaa maalmihii ugu dambeysay ama maalin kaliya hadhan annagu deegaan ahaan maanta ayaan gabagabaynaynaa haddii la yiraahdo muddo dhowr iyo 20 cisho ayaan halkan ku soo noqnoqonaynay iyo meelo kale oo gobolka ka mid ah hadafkii iyo ujeedooyinkii aan lahayn waanu gaadhnay alxamdulillaah dad fiican baan diiwaangelinay cid kasta oo ka qayb qaadatay oo waxa weeye noo fududeysay arrimahaasi odayada iyo siyaasiyiinta iyo dhaqanka iyo dhalinyarada aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa waxaan sayid ku dadaarayaa safiirkuba sheegay inaad kaarka qaadataan maalinta dambe ee soo noqodka hadii la yiraahdo annaguna diyaar baan idinahay inaad keenno oo timaadaan oo qof waliba goobta uu ku qoran yahay la siiyo kaarkiisa la siiyo warqada loogu bedelo kaar taana insha Allah waxaan rajaynayaa saad u timaadeen inaad u iman doontaan kaarka qaad doontaan waxaad muujiseen cudud muddada bisha ay diiwaangelintu socotay ee halkan idin la joognay maalin walba ee idin la qaybsanay hawsha cududda la doonayna waa taad muujiseen ummaddu markay tartamayso waa inay muuqato oo cududeeda muujiso oo halkay ka soo baxdo dhammaan aad Yunus waa mid عدود أدق ويي عدود عدة المقنع الله سبحانه هاي فريم تانو دريا وحويان إن سيدا وده جيركا أي جماعة إسكو هايستان هاي مركز تمان إسكو هايستان مركز وجا قريب قلان سهاي ده عدود دودي ومتو توسان سومالان إن ضد مدايسن أو حقبسن كرايهين وحنا دوران كران ضد كاي دوران هاي سو صار دوران وعير كستبد ضد ربع وكع وعاري وحور كوكعو أرب يقبل ميور رجع هاوش ركبة وكعي مانتا ركبة هاوش وكعي دلير أو سفير كو جامينيو أو دكتور محمود كمدي هاي أو قاري نجم مغان مانتا أي كمدي هين وهالكان نشوفين أنتي هاوش شافوا ضد يستيقظ كقرب قالت وحنا لها وري ما قاسي دعاء نجم مدير دعاء ورد هالكين الدنيا وين وقعني عدود لها وين موجني إنه هذا أودي هاي عالم مقنع كرنا وموجني waxaynu gali doonaa wejigii labaad ee kaar bedelka taasina fariin waxaan halkan uga dirayaa cid kasta oo ay khusaysay inay u diyaar galowdo kaar bedelka in warqadaha la qaatay la ilaashado in la haysto inaynu waxa weeye aan wax ku bedelno gacmaheena iyo waxa weeye awoodeena inaan ku bedelaan idin soo jeedinaya waa Cabsalaan Bashiir Faarax Cabsalaan Saaha warbaahinta qaranka Soomaaliland magaalada Boorama